halkani waa BBC saacada Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7 aroornimo oo gow ah waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada Facebook iyo boggeena internetka ee bbcsomali.com kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa subaxnimo Khamiis ah 10ka bisha Agoosto ee sanadka 2023 waxaan ahay Kawthar Maxamed Cabdullaahi idaacadda subaxnimona qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah FBI-da Mareykanka oo toogasho ku dilay nin baraha bulshada ugu hanjabi jiray madaxweyne Joe Biden khilaafka ka taagan doorashooyinka Somaliland ma horseedi karaa dib u dhac mar kale ku yimaada doorashooyinka imika waxa la hayaa waqti cayiman oo doorashooyinkii dalka lagu qabto oo cidii Ilaahay u qoray afkeeda inay ka qaada ay gasho laakiin hadii ay xisbiyada mucaaradkii wali ay halka ka taagnaadaan waxa dhici karta inay saameyn ku yeelato doorashadan dib u dhac ku keento hadhow toona la waayada waqti kale oo doorasho la isla qaato la isla cayimo ciidamada dawladda Itoobiya oo laba magaalo oo waaweyn oo ku yaala gobolka Amxaarada ka saaray maleeshiyaadka deegaankaas oo maalmihii u dambeeyay uu dagaal ka dhaxay hay-adda diiwaangelinta doorashooyinka UK oo walaaca ka muujiyay weerar dhanka internetka ah waxay ka dhigayaan wax aan dhibaato weyn aysan ka imaanayn oo maadaama koox u yimid inay qafiifiyaan ay isku dayayaan ama ay fududeeyaan laakiin waxa ka dhici kara dhibaatooyin aad iyo aad u weyn tusaale ahaan maadaama la hayo xog magacyadii iyo adreysyadii telefoonadii emailladii wax dhan ay ka mid yihiin waxaa laga yaabaa in qalqal oo dhinaca doorashooyinka u yimaado qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ciyaarihiina ay ku jiraan ayaad ku maqli doontaan idaacaddan subaxnimo oo uu soo saaray Cabdulqaadir Yuusuf Cali ayay dhegeystayaal waxaan marka hore ku bilaabaynaa wararka caalamka ee BBC-da iyo Cabdiraxmaan Cali Dhimbil mahadsanid Kawsar mid ka mid ah musharaxiintii u tartamaysay doorashada madaxtinimo ee dalka Ecuador ayaa lagu toogtay xilli uu ku jiray ololihiisii doorashada oo ka dhacay magaalada Quito Fernando Villavicencio ayaa la sheegay in dhowr jeer madaxa rasaas lagaga dhuftay xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka dalkaas ayaa sheegay in sidoo kale la dilay mid ka mid ah 3 nin oo looga shakilsanaa inay hubaysnaayeen isla mar ahaantaana qayb ka ahaayeen dilkaas ololihii doorashada ayaa la hakiyay dalka Argentina kadib markii gabadh 12 jir ah la dilay iyadoo u socota dugsigeedii tuugo wadatay mooto ayaa ku dhufatay Morena Domingos ka hor inta aysan la haadin isla mar ahaantaana la baxsan boorsadeedii dhacdadan ayaa cadho ka kicisay guud ahaanba dalkaas ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay dabka ka kacay jasiiradda Hawaii ee Lamuai dabkaas ayaa baabiyay inta badan magaaladaas loo dalxiisto in ka badan 10,000 oo qof oo ku nool Kuuriyada Koonfureed ayaa laga daadguriyay guryahoodii iyadoo daafuunta qanuun ay ku soo wajahan tahay dalkaas waxay ku beegan tahay Khamiista maanta xilli la filayay in dhulgo waaweyn dhacaan koonfurta Japan waxa hore u saameeyay roobab mahiigaan ah oo dabaylo wata dadka Belarusiyaanka ku nool Yurub ayaa iyana u dabaaldegaya 3 sano tan iyo markii ay bilowdeen mudaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeeday doorashadii lagu murmay ee madaxweyne Alexander Lukashenko oo ku sii haystay awoodda dalkaas 10,000 oo qof ayaa dalkaas iskaga qaxay oo dibad wareeg noqday tan iyo doorashadaas saynis yahano ayaa iyana sheegay inay helaan cadeymo muujinaya in meeraha Maris uu leeyahay xilliyo kala duwan oo qalayl iyo qoyaan leh sida dhulka oo kale waxay sheegeen xog muddo dheer taalay oo la falanqeeyay inay ku ogaadeen in cimilada meerahaasi tahay mid isbedbedesha sida kan aynu joogno oo kale madaxweynaha Pakistan Arif Alvi ayaa kala diray aqalka hoose ee baarlamaanka ee dalkaas taasoo keentay in dalkaasi ay ka dhacayso doorasho guud xilli dalkaasi uu guud ahaanba ku jiro xiisad siyaasadeed iyo mid dhaqaale kala dirista ayaa dhacday maalmo ka hor intaan la gaadhin xilliga ay ku eekayd muddada baarlamaankaas oo 5 sano ahayd waxaana la filayaa in maamulku meel gaar ah uu xilka la wareego inta laga gaarayo doorashada waxaad dhegeysateen wararka caalamka ee BBC-da waxaana inoo akhrinayay Cabdiraxmaan Cali Dhimbil dhegeystayaal markana u diyaar garooba qaybaha kale inooga haray idaacadeena subaxnimo wahagaag subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilaabnay intii uu socday howlgal ay sameeyeen FBI-da Mareykanka ayaa waxa ay toogasho ku dileen nin baraha bulshada ku faafin jiray hanjabaado rabshado wata kuwaasoo ka dhan ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo saraakiil kale oo iyagana ku lug leh falkan faafaynta warkan waxaa inoo haya isla Cabdiraxmaan Cali Dhimbil oo stuudiyaha wali ugu sugan. Cabdiraxmaan
kowsaray sida aad sheegtayba intii uu socday howlgal ay sameeyeen FBI-da waddanka maraykanka ayaa waxay toogasho ku dileen nimbaraha bulshada ku faafin jiray hanjabaado rabshada wata oo ka dhan ah madaxweynaha maraykanka Joe Biden iyo saraakiil kale. saraakiisha FBI-du ayaa la sheegay inay ninkan oo lagu magacaabo Craig Robertson isku dayeen inay fuliyaan amar qabasho ah oo ay waaran u haysteen isagoo ku sugan gurigiisa oo ku yaal gobolka Utah saacado yar ka hor booqasho qorshaysnayd oo ku tagi lahaa madaxweyne Biden ee gobolkaas. dacwad dambiyada ka dhanka ninkaas oo Robertson ayaa lagu sheegay inuu barta Facebook soo dhigay hanjabaad ka dhana Biden iyo dacwadoogaha gacanta ku haya eedeymaha ka dhanka madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. FBI-du waxay diiday inay bixiso faahfaahin dheeri ah isla mar ahaantaana taasoo ku saabsan dhacdada lagu toogtay Craig. wararka ayaase lagu sheegay in falkani dhacay 6:15 kolka la joogo gudaha dalkaas Mareykanka gaar ahaan magaalada Provo oo meel u dhow 560 kilomitir jirta ay ka dhacday dhacdadani. dacwad dambiyadaas loo haystay ayaa lagu sheegay in fariimaha Robertson ku baahiyay Facebook kuwaas oo ay ku jiraan sawirro qoryo ah iyo hanjabaad ah inuu dilayo Mr. Biden iyo Alvin Bragg oo xirlaaliyaha degmada Manhattan ee hogaaminaya baaritaan ku saabsan lacag uu Mr. Trump siiyay haweeney la sheegay inay wada seexdeen si ay u qariso arrintaas. marka laga tago Biden iyo Alvin Bragg fariimaha kale hanjabaada ayaa waxa kale oo la sheegay inuu yiri inuu beegsan doono xirlaaliyaha guud ee Mareykanka Merrick Garland iyo xirlaaliyaha guud ee gobolka New York Letitia James. Robertson wuxuu bartiisa Facebook ku soo qoray qoraal u dhignaa waxaan maqlayaa Biden oo imanaya Utah sidaas darteed waxaan la soo baxayaa dariiskaygii hore anigoo sidoo kalena boorka ka jafa doona buu yiri qorigaygii M24. cabdiraxmaanow goormaa marka la ogaaday in qoraaladan aan iraahday uu soo qori jiray ninkaas? ninkani muddo ayuu qoraaladan soo qorayay xilli baa jirtay FBI-du u tagtay oo dhaheen George waxaanaad wado wuxuuna iyagii ku afjigay su-aasha ma wadataan waaran. marka xilliga la ogaaday waxay ahayd bishii March kadib maruu qoraal goodin ah oo ka dhana Mr. Bragg uu soo dhigay barta lagu magacaabo Truth Social oo ah shabakad bulshada uu leeyahay madaxweyne Trump. qoraalkaas kadib ayay shirkaddu waxay hanjabaadaas ku wargelisay xarunta FBI-da ee qaabilsan howlgallada khatarta kuwa qaranka. saraakiisha FBI-du waxay markaas booqdeen tuhmanaha waxayna u sheegeen in hanjabaadda uu soo dhigay ay tahay waxaan loo dulqaadan karin. halkiibuu kasii waday fariimaha hanjabaadda ah ilaa la soo gaadhay talaadadii oo uu soo qoray laga yaabaa in Utah ay caan noqon doonto toddobaadkan maadaama meeshan uu shuucigii Biden ahaa ninku toogan doono. cabdiraxmaan cali dhimbiil waa uu mahadsan yahay oo faafaynta warkaasi nala socodsiinayay. markana xisbiyada mucaaradka ah ee jamhuuriyadda gooni-sutaageeda ku dhawaaqday ee Somaliland ayaa qaadacay casuumaad uu u fidiyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi si ay uga wada hadlaan muran ka hareeyay doorashooyinka Somaliland. xisbiga UCID ayaa didmadooda ku sababeeyay in aysan jirin wax laga wada hadlo. haddaba arrintan maxay horseedi kartaa? xaalkase muxuu noqon karaa? su-aalahaas iyo kuwo kale ayaan u bandhignay cabdiraxmaan warsame nuur oo ah agaasimaha xarunta dimuqraadiyadda iyo maamul wanaagga oo ka dhisan magaalada Hargeysa. cabdiqaadir yuusuf cali ayuu qadka telefoonka ugu waramay. horta murankani kama bilaabmin oo keliya taa markii ay soo saareen komishanka doorashooyinka waraaqda, laakiin marka horeba labadii sano ugu dambeysay murankani waa jiray, waanu soo jiitamayey, laakiin iminka wuxuu sii xoogeystay ama aynu odhan karnaa wuu sii libakaaleeyey markii ay komishanka doorashooyinka soo saareen aymaada waqtiga doorashooyinka ururada iyo doorashada madaxtooyada, taasoo ay yidhaahdeen doorashada ururaduna waxay dhacaysaa sanadkan bisha 12, doorashada madaxtooyaduna waxay dhacaysaa sanadka dambe bisha 11 oo 2024 ku beegan. marka haddii aanay intii madaxweynuhu aanu digreeto kusoo saari lahayn oo digreetada madaxweynaha ka hor oo shalay kusoo saaray waxbaa iska bedeli lahaa, laakiin wixii hadduu uu digreeto madaxweyne kusoo baxday sharciyan waa dhaqangal, waxaana laga sugayaa in komishanku inuu doorashooyinka wacyiime qabto. markii hore ayaa in wax laga qabtay ahayd, laakiin hadda waa mid imika u taalla komishanka doorashooyinku in ay hirgeliyaan digreetadii madaxweynaha uu shalay kusoo saaray arrimaha doorashooyinka Somaliland. cabdiraxmaan gudoomiyaha xisbiga UCID oo BBC-da la hadlay ayaa waxa uu sheegay inaanay sinaba u aqbalayn doorashooyin ururo oo dalka ka dhaca xilli madaxweynihii dhaqangeliyey cayimaadii doorashooyinka ee komishanku soo saareen. waddani laftiisu raalli kama ahayn habka loo kala horreysiiyey walow aanay weli mowqifkoodu caddayn intii komishanku go'aanka soo saaray kadib. haddaba arrintaasi ma noqon kartaa mid doorashooyinkii dib u sii dhigta sidii horey u dhacday xilligii doorashooyinkii baarlamanka iyo dowladda hoose oo kale?
walaal aad iyo aad baad mahadsantahay xaqiiqiyan waxa weeyaan kolley labada xisbiye jiray iyo xisbigii hore xisbi xaakimka dowladdu saddexdaba door muhiima ayay ku leeyihiin doorashooyinkan iminka dalka ka dhacaya haddii aanay iyagu ay iminka ilaa waqti xaadirkan ay weli yihiin xisbiye ilaa xisbiye kaloo bedelaya ay soo baxaan sharciyan laakiin sharciyadoodii ay meesha ka baxday laakiin xisbinimo ahaan ay u jiraan haddii aanay doorashada saddexda xisbi si wada jira usoo dhamaynin arrintani waa arrin saameyn ku yeelanaysa xaqiiqiyan walaal markaan usoo noqonnana muranku marka hore wuxuu taagnaan jiray somaliland goormaa doorasho ka dhacaysa doorasho ma dhacaysa madaha doorashada ma qabanayo saansaan doorasho lagu qabtaa ma jirto marxaladahaasoo dhan baanu soo marnay iminka waxaa la hayaa wakti cayiman oo doorashooyinkii dalka lagu qabto oo ciddii ilaahay u qoray carafkeeda inay ka qaada ay gasho laakiin haddii ay xisbiyada mucaaridkii weli ay halkaa ka taagnaadaan waxaa dhici karta inay saameyn ku yeelato doorashadan dib u dhac ku keento hadhow toolana la waayada wakti kale oo doorasho laysla qaato laysla cayimo waxa aynu ka warqabnaa amni darrada muranka doorashooyinka sababtay haddii ay sidan kusii socoto oo la wada hadli waayo ma dhici kartaa saansaanta colaadeed ee muuqata inay sii ballaarato walaal waxa weeyaan actually waa xaqiiq weeyaan waa wax jira waa dhab arrimahani waxay hadday sidaa ku socdaan oo aan xal loo helin waxay keeni karaan muran waxay keeni karaan colaad waxay keeni karaan isnac bulsho isdhexgalkii oo meesha ka baxa laakiin midbaa somaliland ay dadku u baahan yihiin in la darso arrimaha muranka somaliland ka dhacaa waxay ugu badan yihiin waa muran doorasho mar kasta oo somaliland xaaladoodu khatar gasha waxa sabab u ah waa muran doorasho 2005 wixii lagu murmayey ayaa ilaa maanta oo 2023 somaliland ku murmaysaa maxaa qaldan mashruucdii ay naga qabiye yihiin ma dadkiiba dimuqraadiyadda u bislaanin ma xisbiyadiiba habkii doorashooyinka loo mariyay ka leexday ma dowladdiiba fargelin ku haysaa walaal waxyaalo badan baa jira cabdiraxmaan marka arrintaasi maxaa loo sababayn karaa haddaan si yaroo kooban arrintaa u sheego waxa weeyaan arrinta ugu muhiimsan ee meesha taalla waxa weeyaan kow xagga shuruucda somaliland qabyo weyn baa ka jirta shuruucda doorashada waxaa sidoo jirta hay-adihii ku shaqada lahaa inay doorashooyinka qabtaan hadday baarlamaan tahay hadday komishinkii doorashooyinka tahay hadday guurtigii tahay hay-adahaasoo dhani waxay noqdeen hay-ado daciifay shaqadoodina gabay waxaa iyaduna jirta hanaankii xisbiyada halka ideology iyo fikrada xisbiyadu ay dadka usoo bandhigi lahaayeen xisbiyadii dadkii waxay ku ololanayaan qabyaalad iyo reernimo ayaa maxay haytoola jirta waxaa kaloo iyaduna jirto walaal meesha soo gashay dhaqankii iyo siyaasadii baa isdhex galay xisbiyadii saddexdii xisbiba isku daro siyaasadoodii waxa ka arriminaya dhaqankii halkii ay ahayd inay ka arrimiyaan dadka waxgaradka elidka dadka loo yaqaano intellectualska dadka waxbartay dadka siyaasiyiinta kale waxa iyaduna meesha ka baxday somaliland mar kastaba waxa markay arrimo doorasho yimaadaan waxa mucaaridka iyo muxaafidka isku soo jiidi jiray dadkii waxgaradka ahaa waxaad moodaa somaliland inay kasii dhammaanayaan dadkii waxgaradka ahaa ee nabadoonnada ahaa ee wanaaggiisa matalis ka shaqaynayay oo ugu dambeeyey xaaji cabdiwalaale iyo lidkiisii marka walaal somaliland arrimahaas baa keenay muranada soo noqnoqonaya marka maxay kula tahay in xal raalli lagu wada yahay ku imaan karo hortay mid biyo ka dhibcaankii waxa weeyaan somaliland wakti xaadirkan doorasho u baahan yahay doorasho raalli lagu wada yahay la isla afkartay oo laga wada hadlay oo lagu heshiiyey in somaliland la iskugu yimaado oo dhammaan daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka somaliland ay qayb ka noqdaan waxaa la doonayaa doorkii golaha guurtidu meesha uu ka maqan yahay inay waanwaan ka dhex galaan oo ay arrintan u kacaan oo ay isku keenaan labadii xisbi mucaarida ee imika sii jira iyo dowladdii oo xisbigii iyo xaakimkii ka socda waxaa kale loo baahan yahay in dadka waxgaradka ah ee caqliga la saaxiibkii inay somaliland maanta u badbaadiyaan isku abaabulaan si maxay haytoolay arrintaa guul looga gaado waxaana loo baahan yahay markasta khilaaf marka la xelinayo cid baa tanaasusha cid baa tanaasul ka qaadata waktigana waa waktigii si dalka iyo dadka iyo dowladnimada loo badbaadiyo cid ka mid a shacabka somaliland ama mucaarad ama muxaafidku ay tanaasul ka qaadan lahaayeen si horumar iyo badaadhe dalka loo gaarsiiyo doorashooyin xor iyo xalaalna dalka uga dhici lahaayeen kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan warsame nuur agaasimaha xarunta dimuqraadiyadda iyo maamul wanaagga oo ka dhisan hargeysa oo cabdiqaadir yuusuf cali ugu waramayey waxaa muranka doorashooyinka somaliland uu horseedi karo iyo xalkaba weli halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c barnaamijka tabinta tooska ah sabtidan waxaynu ku soo gudbinaynaa kulanka u dhexeeya kooxaha arsenal iyo nottingham forest waa mid ka mid ah kulamada bilowga ama toddobaadka koowaad xiliyaareedka cusub ee premier leaga arsenal kaalinta labaad ayay ku dhammaysatay xiliyaareedkii hore sanadkanna waxay doonaysaa in ay mar kale tartanto halka nottingham forest ay sanad kale doonayso inay baaqi ku sii ahaato heerka koowaad ee horyaalka ingiriiska ee premier leaga nagu soo biir tabinta tooska oo bilaaban doonta 2 duhurnimo xilliga bariga afrika tabinta tooska BBC
waa tahay markana wararka ka imanaya gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Itoobiya ay maleeshiyaadka deegaanka ee Fano ka saareen laba magaalo oo waaweyn waana markii ugu horeysay oo furimaha dagaalka ay gaaraan tan iyo markii uu dagaalku qarxay toddobaadka hore waa dagaalka u dhaxeeya ciidamada dowladda Itoobiya iyo maleeshiyaadka deegaankaasi Amxaarada faafaynta warkaas waxaa inoo haya Cabdulqaadir Yuusuf Cali dowladda Itoobiya ayaa waxay sheegtay in Gondor iyo Lalibela laga saaray maleeshiyaadka gobolka Amxaarada kuwaasi oo ay ku tilmaameen khatarta burcadda ayaa waxay dagaal kula jiraan ciidamada dowladda labadan magaalo ayaa waxaa buuxdhaafiyey maleeshiyada Fano waa khalalaasihii amni ee ugu badnaa ee soo maray Itoobiya tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii sokeeye ee 2 sano ka socday gobolka Tigreega kaas oo khasaare xoog badan u geystay gobolka iyo guud ahaan Itoobiya dhanka kale marsii horeysay dhakhaatiirta cisbitaalka Bahirdaar ee xarunta gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya ayaa BBC-da u sheegay in dad badan oo rayid ay ku dhinteen dagaaladii ugu dambeeyay ee dhex maray maleeshiyaadka deegaanka iyo ciidamada dowladda dhakhtar ku sugan isbitaalka weyn ee magaalada ayaa sheegay in dhaawacyada ay ku jiraan dad ah iyo ilmo 5 bilood jir ah dhinaca kale dadka deegaanka ayaa sheegay in maleeshiyaadka ay la wareegeen gacan ku haynta xabsiga isla markaana ay sii daayeen maxaabiis badan xiisadda ayaa isa soo taraysay tan iyo bishii Abriil markii ay dowladdu ku dhawaaqday inay burburinayso ciidamada gaarka ah ee dowlad deegaanada Itoobiya ee loo yaqaano Liu Police taasi oo horseeday mudaharaadyo ay dhigayaan qowmiyadaha Amxaarada kuwaasi oo sheegay in tallaabadani ay wiiqayso awoodda gobolkooda Cabdulqaadir Yuusuf Cali oo mahadsan yahay oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka gobolka Amxaarada oo u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyada deegaanka markana hay'adda diiwaangelinta doorashooyinka UK ayaa shaacisay in ay wajahayso weerar dhanka internetka ah oo adag oo saameyn kara malaayiin codbixiyayaal ah guddiga doorashada ayaa sheegay in dad badan la aqoon ay u suura gashay inay helaan nuqulo ka mid ah diiwaanka doorashada laga soo bilaabo bishii Agoosto ee sanadkii 2021 haddaba Cabdalla Macalin Maxamuud oo ah madaxa Global Net ahna qabiir dhanka internetka ah ayaa wariyahayaga Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin waxa uu weydiiyey waxa ay burcadnimadan internetka ah UK uga dhigan tahay waxay kaga dhigan tahay arrin aad iyo aad u weyn waayo waxa lagu hayaa waa database ama waa xog aad iyo aad muhiim u ah sida uu xusay madaxa guddiga doorashooyinka waxaa database-ka ama xogta ay ka koobnayd ilaa 40 milyan oo qofood oo magacyo iyo adreesyo ay ku jireen marka taa waxay tusaysaa in xogta ay halis tahay ninka madaxda ka ah wuxuu xusay in ilaa hadda aysan caddayn dhowr shay midda koowaad waxaan caddayn yaa sameeyey maxaa loo sameeyey iyo maxay dhaawac ah ama damage ah ay gaarsiiyeen ilaa hadda macda marka taa waxay uga dhigan tahay ilaa hadda runtii sida ay xuseen waxay ku maqan yihiin assessment ama inay baaritaan sameeyaan oo ay ogaadaan oo ay xaqiijiyaan kadibna wixii ka soo baxa ay wax ku dhisaan macluumaadka iyo xogta ay u dhaceen sidee ayay uga faa'iidaysan karaan baad isleedahay dhibaato noocee ah ayayse u geysan karaan dadkaasi ay xogtooda heleen waa su-aal aada muhiim u ah sida hadda iyaga ay sheegeen guddiga doorashooyinka ninka madaxda ka ahaa horta waxay ka dhigayaan wax aan dhibaato weyn aysan ka imaanayn oo maadaama dhaawac u yimid inay khafiifiyaan ay isku dayaayaan ama ay fududeeyaan laakiin waxaa ka dhici kara dhibaatooyin aad iyo aad u weyn tusaale ahaan maadaama la hayo xog magacyadii iyo adreysyadii telefoonadii iimayladii wax o dhan ay ka mid yihiin waxaa laga yaabaa in qalqal oo dhinaca doorashooyinka u yimaado horta mid ma dhacayso in saameyn ay ku yeeshaan doorashada lafteeda ma dhacayso maadaama warqad iyo qalin ay tahay oo qofka tig uu siinayo bokisyada u baahan yahay laakiin waxaa imaan kara in campaign la sameeyo oo fartiimo iyo waraaqo aad u badan loo soo diro si khalqal loo geliyo ama dhinaca loo baahdo loo looxiyo laanna waxaa lagu andacoonayaa doorashadii uu kusoo baxay Donald Trump in Russia saameyn ay ku lahayd tii Brexit in Russia saameyn ay ku lahayd oo qayb weyn ay ka qaadatay marka haddii mustaqbalka qalqal noocaas oo kale ay sameeyaan waxaa laga yaabaa in ay ra'yiga dadweynaha ay leexiyaan marka cabsida ugu weyn waa taas tan labaadna waxay ka imaan kartaa in xogta loo isticmaalo waxyaalo aan ku habboonayn maadaama ay tahay xog aad u ah sensitive ama aad u nugul internetka la jabsaday waxay dhacday baa laleeyahay Agoosto sanadkii 2021 maxaa arrintaasi ilaa intaasi loo ogaan waayey waxyaalaha dadka ka yaabiyay ka mid tahay arrintan waxay dhacday August 2021 waxaa la ogaaday October 2022 weli qaabka lagu ogaadaa waxay tahay in baaritaan la sameeyey oo si iskeed ah dadka
soo galaya si loo hubiyo markaasaa waxaa la ogaadaa in dadka soo galaya systemka ama xogtan ayba ka mid yihiin dad aan shaqo ku lahayn taasaa waxay keentay in la sameeyo baaritaan kadib ayaa waxaa la ogaaday in dhibaato ay socotay in muddo ah kadibna waxay sheegeen muddo hadda 2 maalmood ka hor ah waa 10 bilood kadib macnaha markii ay ogaadeen markii la weydiiyey guddiga doorashooyinka waxa ay leeyihiin waxaan la wadaagnay informationka noocaas oo kale ah National Cyber Security Center wax loo yaqaan oo qayb ka ah GCHQ waa hay-ad u qaabishan dowladda waxyaalaha ku saabsan cyber attack iyo dabagalka noocaas oo kale ah marka waxa uu leeyahay maadaama baaritaano muhiim ay socdeen waxaan jeclaysanay inaan arrinta aan si hoose aan u wadno ilaa aan ka hubinayno waxa dhacay iyo macnaha ciddi ka dambeysay laakiin waxaa la yaabka ah runtii mudane ilaa hadda in aan la ogeynin yaa ka dambeeyey markii waxay dhacaan waxaa la fiiriyaa 3 shay midda koowaad waxaa la fiiriyaa yaa sameeyey tan labaad waxaa la fiiriyaa maxay sameeyeen oo maxay dhaawac ay geysteen midda saddexaad waxaa la fiiriyaa ujeedada ka dambeysa maxay tahay marka saddexdaas su'aalo jawaabahooda ilaa hadda runtii ma cadda waana dabcan mustaqbalka waa laga yaabaa in marka la ogaado baaritaanka waxyaalo cusub ama xoog cusub ay ka soo baxdo way dhici kartaa mustaqbalka dadka iyagu xogtooda la helay diiwaankaasi ku jiray sharciyan marka dhinaca qaanuunka la fiiriyo ama xagga internetka qawaaniinta ku dhisan iyagu ma dacwoon karaan oo wax magdhow ah dowladda ma weydiisan karaan maadaama macluumaadkoodii la xaday ama loo dhacay oo cid kale oo aanay ogolaasho u siinin ay gacanta u gashay midaa jirta hadda wadamada aan joogno haddii qofka mithaal bangi u leeyahay oo loo dhaco oo financial ahaan dhaawac la gaarsiiyo dabcan wuxuu xaq u leeyahay lacagta in loo soo celiyo uu bangiga markaa mas-uul ka noqdo kadibna iyaga baaritaan ay sameeyaan ay ogaadaan maxaa dhacay yaa sameeyey iyo wixii ka dambeeyey laakiin midda hadda dowladda xaggeeda dabcan waxaan way dhacaan hay-adaha badankooda ma sheegaan laakiin si joogta ayay u dhacaan marka haddii mustaqbalka la ogaado in macluumaadkan la xaday lagu sameeyo dhaawacyo ama dhibaatooyin ama hujuum oo dhinaca dhaqaalaha ah waa laga yaabaa markaas oo kale in ay dalbadaan way dhici kartaa ugu dambayntii dalalka dunida saddexaad oo Soomaaliya ay ka mid tahay maxay ka baran karaan dhacdadan waxay ka baran karaan wax aad u weyn laana hadda wadamada loo dhacayo wadamada dunida ugu tunkan weynaa marka taa waxay tusaysaa in marba dadkii haystay qalabkii iyo aqoontii iyo runtii farsamadii iyo injaaradii haddii loo dhacayo dunida soo kacaysa waa kasii xag jirtaa khaasatan markay timaado Africa khaasatan markay timaado wadankeena laana hadda waxaa lagu waxa loo yaqaan one man one vote oo qof walba hal cod u yeesho dabcan waxaa muhiima dadka xogtooda in la soo ururiyo in la geliyo database in databaseka la ilaaliyo aaday muhiim u tahay marka baaqa iyo fartiintan u diraayo macnaha dowladda Soomaaliyeed kuwa hadda jooga kuwa mustaqbalka imaanaya waxay tahay in hadda maadaama waxaan bilow ay yihiin ay kasii taxadaraan oo ay kasii fikiraan dad aqoon iyo khibrad u lehna ay u magacaabaan arrinta iyada inay gacanta ay u geliyaan oo aysan noqon kaliya wax iska habacsanaan ah loo sameeyo ama wax degdeg loo sameeyo kaasi waxa uu ahaa Cabdalla Macalin Maxamuud madaxa Global Net ahna qabiir dhanka internetka ah oo Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin ugu waramayay waxa ay burcannimada internetka ah uga dhigan tahay UK wali halka nagala socotaan waa BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba waa tahay ciyaarihii ayay inoo soo socda balse markan malaayiin mootooyin ah ama sida dadka qaar ay u yaqaanaan bodaboda ayaa kaalin muhiim ah ka qaata isu socodka dadka iyo badeecadaha ee magaalooyinka ku yaala wadamada Afrika balse waxa ay dhanka kale sababaan wasaqowga hawada oo meelaha qaar sida Nairobi oo kale ay inta badan dhaafto heerka badqabka haddaba xalka ayaa ah in isticmaalka batroolka loo bedelo koronto waxa ayna shirkadaha Kenya qaarkood haatan bilaabeen inay soo bandhigaan gawaarida korontada ku shaqeeya oo dadka badankoodna ay awoodi karaan Aadan Maxamed Cabdi Saalimiin ayaa warbixintan ku eegaya jiilkan cusub ee mootooyinka ku shaqeeya baterigu ma hagaajin karaa wadooyinka ciriiriga ah iyo kuwa hawada wasaqaysan waa kan Joseph Muwarangu oo ah mid ka mid ah darawalada boodabooda oo arrintaasi ka jawaabaya waxaa laga yaabaa in adiga oo ku jira saxmad aad aragto qiiq oo aad dareentid inuusan u wanaagsanin caafimaadkaada ma aha wax wanaagsan marka mootooyinku aad bay ugu wanaagsan yihiin deegaanka waana kuwa badqab ah mootooyinka ku shaqeeya batroolka ayaa saldhig waxa ay u yihiin nolosha magaalada Nairobi rakaabka ayaa waxay raacaan mootooyinkaasi boodabooda waxaana u isticmaalaan in ay alaabooyinka ay ku qaataan dadkuna ay raacaan
mootooyinka korontada ayaa markii hore aad qaali ugu ahaa iyaga inta badanna waxa ugu wacnaa qiimaha bateriga. hadda shirkadaha bilowga ah ayaa waxaa lagu iibiyaa mootooyinka elektrooniga ah iyagoo aan lahayn bateri, taas oo ka dhigaysa qiimo la mid ah kan mootooyinka kale. kadib marka aad kiraysanayso bateri la cabbeeyo ama la buuxiyo oo qiimo jaban, laakiin uma baahnid inaad adigu cabbaysid ama aad buuxisid. waa kan Joe Hartiscroft oo ka tirsan ARC Ride oo arrintaasi sharaxaya. adeegan waxaan ugu yeernaa bateri si la mid ah sida aad tamartaada uga heli lahayd kaalin shidaal. waxaad imaanaysaa mid ka mid ah kaalimahayaga, bateriga ayaad ka beddelanaysaa, kadibna waad sii soconaysaa. marka uu bateriga uu hooseeyo, hel xarunta kuugu dhow ee beddelka. soo saar baterigaagii hore, kadibna gal albaabka. ku soo celi baterigii hore sanduuqa si aad dib ugu celisid ama aad u buuxisid. soo qaado bateri si buuxda loo cabbeeyey, waxaadna ku xidhaysaa mootada, kadibna waad iska baxaysaa. waa kan Joseph Morango oo mar kale arrinkan si faahfaahsan u sharaxaya. way ka jaban tahay shidaalka. waxaan isticmaali jiray $9 maalintii, laakiin hadda waxaan isticmaalaa $4 oo keliya. waxaa loo baahan yahay in la dhiso saldhigyo cusub oo bateriga si aanay darawalladu aanay ugu safrin meel fog si ay bateri u helaan. laakiin si ka duwan kaalimaha shidaalka, ma aadi kartid goob kasta oo wax lagu kala beddesho, maadaama shirkado kala duwan ay leeyihiin bateriyada kala duwan. si kastaba ha ahaatee, Joseph waxa uu ku faraxsan yahay tijaabada mootooyinka cusub. mootooyinkan waxbaan kaydin karnaa. marka loo eego ganacsi kasta, ujeeddada ganacsigu waa inaan faa'iido ka helno. marka waxaan ka fakarayaa inaan mid ka mid ah anigu yeesho. codkaas ayaa u dambeeyey warbixintii uu inala socodsiinayay Saalimiin ee ku saabsanayd isticmaalka gawaarida korontada. weli halkaad nagala socotaana waa BBC. qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayana soo gaarnay. barnaamijka tabinta tooska ah axaddan waxaynu ku soo gudbinaynaa ciyaarta xiisaha leh u dhexaysa kooxaha Chelsea iyo Liverpool. labada kooxood waxa ay ka mid yihiin kooxaha waaweyn ee dalka Ingiriiska ee loo yaqaano 6da sare. hase yeeshee xilliyaareedkii hore waxa ay ku dhammaysteen boosas aanan ahayn 4ta sare. sanadkan waxaa la eegi doonaa xaaladaha labadan kooxood ee ay ku bilowdaan horyaalka Ingiriiska ee Premier League. ciyaarta ayaa ka dhici doonta garoonka London ee Stamford Bridge ee kooxda Chelsea. nagu soo biir tabinta tooska oo bilaaban doonta 6da maqribnimo xilliga bariga Afrika. tabinta tooska BBC. waa tahay dhegeystayaal, haddaba ha moogaanina tabinta tooska ah ciyaaraha kale haddii aan eegno, gaar ahaan suuqa kala iibsiga. kooxda Manchester United ayaa rajaynaysa inay dib u midoobaan Benjamin Pavard oo 27 sano jir ah iyo ciyaartooyga ay ka wada tirsan yihiin xulka France ee Raphael Varane, iyadoo United ay bayaan u gudbisay dalabka daafacaasi. isla Manchester United waxay danaynaysaa inay kooxdu keento Sofiane Amrabat oo 26 sano jir ah oo reer Morocco ah. PSG iyo ciyaartooyga afka hore ugu dheela Brazil ee Neymar Jr. toddobaadkan ayay kulmi doonaa si uu mustaqbalkiisa ay wada hadlaan. dhegeystayaal, idaacaddii subaxnimo waa naga intaa. anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi oo idin leh tan iyo kulankeena xiga 5 galabnimo inta ka horeysa. sidaas iyo nabadgelyo.